السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkayga waan islaamay sidee tihiin ma fiican tihiin waxaan rajaynaa inaad fiican tihiin. maanta darsigeena waxaan ka hadli doonaa ereyga prefer would rather farqiga u dhaxeeya mid kasta micnihiisa iyo tusaalayaal badan aan soo diyaariyay. waa darsi muhiim ah. hadda aan darsigeena bilowno. darsigeena intaanan bilaawin please like subscribe kayga ilaawina commentkana ra'yigiina ii soo qora iyo darsiyaasha kale iga jeeshinaan ii soo geliyo. waan islaamay. okay, prefer maxay la macno tahay? waxay la macno tahay inaan wax ka doorbidid wax. masala waxaa rabta inaad tira aniga waxaan shaaha ka doorbidaa qahwada. yani shaahan jecelahay qahwada aad uma jecli. haddaad itirahdid labadan dooro mid ka dooro shaaha mise qahwada, shaahan dooran lahaa. camal markaa rabta inaad tirahdid sidee ku dhahi karta af ingiriisiga? waxaad isticmaalaysaa ereyga prefer. I prefer tea to coffee. waxaan shaaha ka doorbidaa qahwada. so prefer inaa wax aad ka doorbidid. so prefer doorbidid ila macno tahay inaa wax jeclaatid wax kale ka badan. okay, prefer isticmaalaheeda haddaan isla fiirino. prefer plus noun. prefer iyo magacyaasha way raaci karta. example waxaad dhihi karta I prefer tea, I prefer coffee. waxaan doorbidaa shaaha, waxaan doorbidaa qahwada. I prefer summer. kuleelahan doorbidaa, kuleelahan jecelahay ila macno tahay. isticmaalka kale waxaa weeye prefer wax to wax. masala sidaan nii sheegay I prefer tea to coffee. waxaan doorbidaa shaaha qahwada. waxaan shaaha ka doorbidaa qahwada. mise she prefers dogs to cats. ayada waxay eeyaha ka doorbidaa bisadaha. mise waxaad dhihi karta I prefer London to Paris. yani aniga waxaan jeclahay London more. London ayaan Paris ka doorbidaa. He prefers walking alone to walking with others. yani asaga wuxuu doorbidaa inuu keligiisa socdo intuu dadka la socon lahaa. wuxuu keligiisa inuu socdo ka doorbidaa in dadka kale la socdo. qaacidadiisa waa sidan I prefer tea to coffee. laakiin haddaad tirahdid I prefer tea than coffee waa qalad. than ma aha, waxaa isticmaalaysiin to. isticmaalka saddexaad waxaa weeye prefer plus to plus verb yani ficilka. masala waxaa rabta inaad tirahdid waxaan doorbidaa inaan socdo. waxaad dhahaysaa I prefer to walk. ficilka markaa rabtid inaad ku dartid prefer waa inaad horta ku dartaa to. to plus ficilka. prefer plus to plus ficilka keliya ma aha, waa inaad to ku dartaa, waa muhiim. she prefers to work in the morning. waxay doorbidaa inay subaxdii shaqayso. yani waxay jeceshahay inay subaxda shaqayso, habeenka ma ahee subaxdii inay shaqaystay jeceshaha. mise I prefer to stay home. waxaan doorbidaa inaan guriga joogo. yani inaa wax doorbid. prefer waxay la macnata doorbidid mise inaa wax ka jeceshahay mise waxaas labadaas shay markaa lagu sheego waxaas adiga aad ikhtaaran lahayd prefer ila macno tahay. he prefers to study alone. wuxuu doorbidaa inuu keligiisa wax barto. waxaa waay qaacidada prefer plus to plus verb. isticmaalka afaraad prefer plus ing. prefer plus ficilka iyo ing. ficil hadaa sheegaysid ya ing a ku daraysaa mise to baa ku daraysaa. waxaad dhihi kartaa I prefer walking. sidoo kale waxaad dhihi kartaa I prefer to walk. labadooda waa sax. she prefers reading. I prefer working at night. waxaan doorbidaa inaan habeenkay shaqeeyo. sidoo kale saana noqon kartaa prefer plus ficil ing lagu daray to ficil ing lagu daray. masala I prefer walking to driving. yani aniga waxaan doorbidaa inaan socdo, waxaan socodka ka doorbidaa gaari waditaanka. I prefer reading to watching TV. waxaan akhriska ka doorbidaa daawashada TV-ga. she prefers cooking at home to eating out. waxay guriga wax ku karin ka doorbidaa bannaanka inay wax ka soo cunto. yani ayada waxay jeceshahay inay guriga
cuntadeeda ku karsato intii ay bannaanka aadi lahayd. Isticmaalka lixaad waa sidaan: prefer to do rather than do. Prefer to plus verb plus rather than plus verb. I prefer to walk rather than drive. Waxaan doorbidaa inaan socdo halkii aan baabuur wadi lahaa. She prefers to stay home rather than go out. Waxay doorbidaa inay guriga joogto halkii ay bannaanka u bixi lahayd. Isticmaalka kalena waa isla fiirina prefer iyo would prefer. Hadda aan isla fiirino farqiga u dhaxeeya prefer iyo would prefer. Goorma isticmaalna prefer, goorma isticmaalna would prefer. Prefer يعني markaa rabtid inaad ka hadashid inaad wax aad jeceshahay aad doorbidid oo general, si general ahaan ah. Masala wax dhahaysa aniga shaaha waxaan ka doorbidaa qahwada. waa general, okay? laakiin would prefer wax oo khaas ah. Masala maanta wax ku xiran ah mise meesha ku xiran ah, meesha hadda aad joogtid waxaad ka doorbidaysid oo jeclaan aad oo hadda aad يعني aad ikhtaaratay markaas loo isticmaalo. laakiin prefer markaad dhahaysid yani wax general ah markaa ka hadlaysid baa loo isticmaalaa. example ahaan, I prefer working in the morning. guud ahaan waxaan doorbidaa inaan shaqeeyo subaxdii. would prefer masala tusaale aan isla fiirino. I'd prefer tea please. I'd prefer tea please. I would prefer tea please ma dhahayo waa soo gaabanaya I'd prefer tea please. yani masala qof baa ku weydiiye tea ma rabta mise cafe baa rabta, markaas markiiba si ixtiraam leh hadda waqtiga hadda ah oo ku saabsan waxaad isticmaalaysaa would prefer. yani si ixtiraam leh markaa rabta inaad u hadashid. sidoo kale wax waqti hadda aad ikhtaaratay aad jeclaatay waqti khaas ah ku xiran ah waxaad isticmaalaysaa ereyga would prefer. so waxaad dhahaysaa I'd prefer tea please. shaah ayaan doorbidayaa fadlan elemana tahay. mise waxaad dhihi kartaa I'd prefer to stay home tonight. yani maanta waxaan doorbidayaa inaan guriga joogo. so waxaan isticmaalay I would prefer mise I'd prefer. okay, haddaan isla fiirino farqiga u dhaxeeya would prefer, would rather. labadooda maxay la macno yihiin? horta labadooda waxay la macno yihiin waxaan doorbidi lahaatan halkii taas ay la macno tahay labadoodaba. yani waxaanaad doorbidayaa halkii waxaas ahaa. waxaanaad doorbidayaa halkii waxaas. I would choose this instead of that. yani kan baan doorbidi lahaa waxaanaad doorbidi lahaa waxaas halkii waxaas ahaa. waxaan doorbiday waxaan halkii taas ay la macno tahay labadoodaba. laakiin farqi baa u dhaxeeya, welibana farqi muhiim ah. isticmaalka markaa isticmaalaysid would prefer iyo would rather farqi oo waadaxa baa jira. aad u baahantahay inaad ka fiirsatiin, hadda aan isla fiirino. hortaan ka hadalno would rather. qaacidadiisa waa sidaan: subject plus would rather plus ficilka siduu yahay oo waxba lagu darin, ing lagu darin, to lagu darin, ficilka siduu yahay. so masala I'd rather stay home. She'd rather go alone. waxay doorbiday inay keligeeda baxdo. would rather ila macno tahay waxaan doorbidi lahaa, waxaan ka doorbidi lahaa, mise waxaan jeclaan lahaa inaan. ila macno tahay would rather. I'd rather stay home tonight. waxaan caawa ka doorbidi lahaa inaan guriga joogo. waxaan caawa ku doorbiday inaan guriga joogo. I would rather coffee than tea. waxaan qahwada ka doorbiday shaaha. haddan isla fiirino would prefer. would prefer sidee waaye isticmaalkeeda iyo qaacidadiisa? sidan waaye: subject plus would prefer plus noun, yani magaca. I'd prefer tea. She prefer the red dress. ficilka markay raacayso would prefer markastaba to baa lagu darayaa. yani qaacidada waa sidaan: subject faacilka plus would prefer plus to plus ficilka verb. I'd prefer to stay home. waxaan doorbiday inaan guriga joogo. so would prefer markay ficilka raacayso markasta to baa lagu darayaa. laakiin
would rather to laguma dareen keliya ficilka siduu yahay baad isticmaalaynaa laakiin marka halkan would prefer aan dhahnay mar kastaba to baa raacaysa tani ha ilaawina tan waayo farqiga u dhexeeya keliya he'd prefer to work alone wuxuu doorbiday inuu keligiisa shaqeeyo okay jumla negative ah sidee loo sameeyaa masala jumladana haysanaa they'd prefer to fly negative baa ka dhiganaa they prefer not to fly not halkaasaan gelinaynaa ficilka ka hor they'd rather fly negativekeeda mise not hadaarnaa ku darno sidee baa ku dareynaa saanay noqonaysaa they'd rather not fly example-kana isla fiirino masala qof baa ku weydiin kara do you want to talk about it ma rabta inaad ka hadashid markaas saxaabta inaad tidhaahdid waxaan doorbida inaanan ka hadlin sidee baa dhihi kartaa I'd prefer not to mise I'd rather not mise su-aal baa rabta inaad samaysid so waxaa isticmaalaysaa sidan waayo qaacidadiisa would plus subject would you prefer to go to France or Spain miyaad jeclaan lahayd inaad aado Fransa mise Spania ilaa macnaha tahay jumladda mise saana waa dhihi kartaa would you rather go to France or Spain okay darsigeena intaas ahaa waxaan rajaynayaa faa'iido ka hesheen please like subscribe kayga ilaawina commentkana ii soo qora darsiyaasha kale iga jeceshiin inaan ii soo geliyo waan isalaamays arag dambe iyo darsi kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu